السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دhowaada asxaabta meel walba joogtaan barnaamijkeeni qisooyinka aan kaga hadli jirnay dadyow isjecel ee waqtigu kala kaxeeyay ama iyagu isqiyaamay. Maanta waxaynu ka hadlaynaa qisada jacayl ee Amitabh Bachchan, Cali Dheere ninka loo yaqaano iyo Rekha. 1973 odagan Cali Dheere ama Amitabh isagoo aroosa oo Jaya Bachchan guursaday ayaa waxa dhacday 76 sano kadib markii ay Rekha isaga iyo Jaya isguursadeen. 3 sano kadib waxay isbartay Rekha oo filankii ugu horeeyay ay wada mataleen duwan channel oran jiray ayay iska heleen oo isku jeclaadeen. Adigu jacaylkoodii xogaa ayuu sii socday waa la kulmi jiray guri ay Rekha saaxiibadeed leedahay lagu kulmi jiray oo waxyaabo afayra ama gaabsi lagu sameyn jiray. hase yeeshee odagu wuxuu haystaa waa Hinduism diinta Hinduismkuna ama dhaqankooda uma ogola laba naag la isku wado ama la isku guursado. Adigu wuxuu wadaba aakhirkii jacaylkii uu soo gabagabeeyay ama fankoodii jacaylka uu soo gabagabeeyay oo wuxuu aroos baan hay hadda qof la dhalay marka waxa weeyaan gabadheena kala kaxee marka Rekha aad iyo aad bay uga murugootay oo murugadii iyadoo murugaysan bay kala tageen. waxaa dhacday inay guursato kadibna ninkii ay guursadeen oo beelooda ha isguursadeen Rekha iyo jacaylkeedii odagu waa dhintay. Rekha odageedii kadib waxay go'aansatay inay xiriirba iska soo gabagabayso balse Amitabh iyadu waa isjeclaayeen mar qaar hoosta waxa weeyaan waa la isku soo noqday hoosta laga wada socday oo waa la kulmi jiray waayo gabadhuna aad bay u qurux badnayd isaguna haska qaab xumaaday aad wiil u fidan oo xidig markaa jira ayuu ahaa oo daraamada iyo bedelay. marka Amitabh aakhirkii isagu soo gabagabeeyay xiriirkii uu la lahaa Rekha oo wuxuu runta u sheegay inayna suurto galeen oo wuxuu ku yiri anigu iminka aabahay waalidkay baan ka dambeeyaa maqlaa Jaya waa gabadh wanaagsan waa gabadh reer magaala ka dhalatay waa reer qoys wacan ka dhalatay marka gabadhaas sida hawlyarada lagu siiyay ee ubadkay haysa waalidkay way ima ogola inaan wada socono marka calafka garaaso anna suuqa gal saanti Rekha ahayd waxa weeyaan xiriir badan oo ay niyadu ahayn bay samaysay waqti badan way joogtay filmaha way sii samaysay aakhirka waxay go'aansatay inay marka ninkeedii ka dhintay kale inay xiriir iska gabagabayso iska deyso muuqaalka xigeenka ku kulmi doono waxaad leeyahay nabadgelyo oo waxaad leeyahay YouTube-geena qisooyinka shaarub haddii una subscribe ku saarnay subscribe saaro muuqaalka like saar sidoo kale asxaabtaada la sii wadaag oo sii share garee waxaad iga tagayaa muuqaalka xigeenka ku kulmi doono waa anigoo shaaruba nabadgelyo nooli kulantee aad iyo aad baan salaamaya asxaabta aanu jecel lahay halka ka wada soconaa maalintu ay wanaagsanaato.